Halo, assalamualaikum. Halo, Ustadi. وعليكم السلام مستر عمر سوداو. Ebo waa dhawahay maasha Allah boqolkiiba boqol. Ustadi waa fiicana xaaladeedu aad iyo aad u degan tahay. Xaaladiina ka waran caafimaadkiina ka waran waa soo dahay suumka meel dheer aan ka imaado ma fahanti. ما شاء الله ما شاء الله سوق انت كل مرة يسان. Warniyahow suuqa deer sidii aad nagu ogeyd aniga suuqa isla nahay waxa waaye barnaamijkii aad ogeyd waxa waaye ahaana support and resistance waxa waaye indicatorna saan isku rafaadayna isku daaladhacayna waa iska soo dhaafay ma fahanti. ما شاء الله. hadda waxa waaye market structure aan isticmaalaa meeshaasaan ku haystaa waxa waaye wixii aan maalintii aan isla qaadanayna isla ii sheegaysay wixii yar aan qaatay ma fahanti. ما شاء الله. marka hadda wax badan oo ii saxan yihiin suuqa wax badan aan ka helaa de marna ii sheeg haddii 4 trade aan qaato mida macnaha laga yaabaa in stable siiga dhaco saddexa kale inay macnaha ii toosaan ما شاء الله. taasna waxaa la dhihi karaa waa barnaamijka oo forex oo ku dhisan yahay يس ها. marka support and resistance waa ku soo daalnay iyo ii sheeg نفع كاغلم صارت معنا نفع كاغلم. wallahi lacagta iga dhuntay ma la sheegi karo 10 kun waa dhantaa ma fahanti. ما شاء الله. هاي. aniga waxaan ku jiray forex 2 sano ku dhawaad waa ku jiray صح support and resistance indicator aan isticmaali jiray صح markii hore waxaan islahaa waxa waaye meel fiican aad ka gaaraysaa صح. support resistance markii hore waa noo fiicnaayeen laakiin markii dambe iyo suuqa markaa u fiirisid support and resistance suuqa kama shaqeeyo فعلا. baalkan la dhahayo ii sheeg la dhahayo ii sheeg indicatorna asagana sidoo kale suuqa kama shaqeeyo indicatorada aan isticmaali jirnay waxaa kamid ah MACD aa kamid ah RSI aa kamid ah moving average aa kamid ah kulligood waxaa u malaysaa suuqa inay hawaaye ii sheeg si sax ah ayna u abalaagareynaynin sida market structure-ka suuqa uu macnaha ii sheeg trade line-ka iyo nature-ka suuqa si fiican u fahmaysid maanta dhan waxbaa kaa maqnaanaya waxaana hadda support resistance aad dhigatid aad macnaha ii sheeg waxaas leedahay support markaad dhigatid ama resistance dhigatid suuqa waajibsaday kor u raac uuna kuu soo kala wareegaa suuqii waxa waaye stable suuqaaga dhufanaa marka asxaabta iyo dhammaan dadka group ku jira iyo ardayda waxaan dhihi lahaa horta macalinka laga faa'iidaysto awalan macalin liibaan oo aan ku aqaano qof oo market structure-ka aad u yaqaana wax badanna kusoo guda jiray market structure oo aniga si fiican u aqaanaa waa ani saaxiibkay waa macalinkay waa qof mentor ii ah wax badan ii sheegay wax badan aan la kaashtay ardayda waxaan dhihi lahaa macalinka inay aad iyo aad uga faa'iidaystaan waxa waaye ay u dhegnuglaadaan waxyaabaha uu sheegayo waxaan dhihi karaa sheeg liibaan waxa afkiisa kasoo baxaya kulligood waa wada cashir waa wax ii sheeg important ah ardaydana waxaan dhihi lahaa qof kasta oo macnaha ii sheeg meeshan ku jira in waxa uu macalinku sheegayo uu nood garaysto dadka qaarkood waxa waaye dad ii sheeg oo degdegayo eg yihiin forex wallahi haddaad kusoo degdegtid oo sidaad lacag ka samee dhulkuu kula goynaya akoonkaaga waa gubaa adiga stressuu kugu ridaa maskaxdaa ku xanuunaysa forex lacag ka samee laysma dhaho forex waxaa loo bartaa awalan cilmi ahaana loo bartaa qof macnaha ii sheeg shaqo inaad ka dhigataa loo bartaa kabacdina lacagta waa iska imaanaya laakiin haddaad dhahda lacag ka samee waxaan inaa adiga lacagtaada soo gelisid oo lacagtaada lagaa qaato lagaa cunaad loogu talagalay awalan laakiin haddaad is dhahdid waxaan ka dhigo camal ka dhigo oo habeenii maalin sheeg niyadda ku haay saacad kasta u soo kac gurigaaga u joog computerkaaga ku taarnaado trade review-gaaga saaxiib la noqo ii sheeg lacag kasta meesha analyze garaysay xilliga analyze garaysay ka qaado baalkii ii sheeg waxaad ka qaadataa sawir ka qaado sababtii meeshaan u aaday sababtii u aadi weysay wax dad asad wax camal oo saasaa ka dhigatid wuxuu ku noqonayaa ii sheeg meeshaa rabta uu ku gaaraya lacagna way ku imaaneen laakiin haddaad dhahdid hebel lacag sameeya maanta lacag ka samee wallahi inaadan forex ku jiraynin runta kalena qof kastoo kusoo jabay waxa waaye ii sheeg laga wareystaa marka istiraatiijiyadda aad haysataan waa istiraatiijiyad saxan market structure oo macalinkiin sharxaya wallahi market structure intaynan soo gaarin ka hor saan ugu rafaadsanan suuqan ilaah og
haddii aan ogaan lahaanay maalintan bilaabay forex market structure inuu jiro waxaas dhan oo macnaha ay sheegaan isku soo daalay iskuma soo daali lahayn xitaa aniga indicator lacag waa ka bixiyey oo sheeg suuqan macnaha aan damcay inaan lacag uga sameeyo laba maalmo saddex maalmo signal ku siinaa maalin afraad wixii ka dambeeyana waxa waaye sheeg dhulku kula goynaa marka asxaabay waxaan dhigay oo ardada waxaan dhahaa kulligood waxaan kula dardaarmaa inay macalinka aad looga faa'iidaysto macalin haye okay walaal cumar aad u mahadsan tahay dhiirigelintaada iyo taladaadii insha Allah inaan anfacada rajaynaynaa xogaa dadka ku sii suganayna masar cumar aad u mahadsan tahay aasi wada noloshan insha Allah sidoo hadda cumar idin sheegana waxa ogaataan qof walba oo suuqan ku fikirayo ulijidkiisa koowaad ee tahay inuu lacag ka sameeyo waxaa jira waxyaabo ka horeeya waxyaabaha ka horeeyna hore ugu soo hadalnay waa qofka inuu barto qaabka suuqan u shaqeysto qaabkeed aad uu lacag u fasaareen haddii waxyaabo qaar aad samaysid see lacagtaada noqon doontaa mid inta suuqan baranaysidna waxa kaaga digaya in lacag run la soo gasho suuqan waxa waaye almost lacagtaada yar asaga la isgareyn adigoona cilmi dhammaystiran u heen waxaan rajayn doonaa insha Allah markii koorskeena noo dhamaado intiina insha Allah waxa waaye sida cumar oo kale insha Allah dadka u waaninaa inaa idin arko insha Allah waa sii wadanaynaa marka insha Allah marka lacagaha ugu waaweyn ee suuqa ka shaqeeya ee noo mareysay marka lacagaha ugu waaweyn ee suuqan oo beeriska oo ugu waaweyn waa hal beeriska waxa la lahaa markii lacagaha laba ay yihiin beeris la lahaa markii lacag kaliya tahay waa halka beerkaas marka lacagaha waa kana structure kan mid kale PDF kan insha PowerPoint kan groupka in soo dhiga qof insha Allah inuu xogaa iska sii akhristo rajayna lacagaha ugu waaweyn waatana waxaa loo yaqaanaa USD waa suuqa inta boqolkiiba ka tahay ujeedaa waa 72.8 euro JPY waxaa laga wadaa USD waa taqaanaan waa lacagta Mareykanka eurona waa taqaanaan waa lacagta eurada ee wadamada inta badan Yurub laga isticmaalo JPY waxa waa Japanese yen lahaa lacagta Japan waaye sidoo kale GBP waxa la jiro oo ah Great Britain pound laga wadaa waa lacagta Ingiriiska AUD waxa waaye Australian dollar waa lacagta Australia CHF waxa waaye Swiss franc waa lacagta Faransiiska ay leedahay CAD waxa waaye Canadian dollar NZD waxa waaye lacagta loo yaqaan New Zealand dollar suuqa inta badan oo ugu waaweyn suuqa go'aamiyo suuqan looga shaqeysto waaye marka waxa jirta ayagoo beeris noqonayo oo 28 lacagood ay noqonayaan ayagana waxay u falgalayaan labo isku fasiir u dhacayaan laakiin lacagaha kaligood markay yihiin 8 lacagood lacagaha okay major beeris waxa la jiro major currency lacag walba ee la socota USD suuqaas waxay ka tahay major waxa lacag weyn lacag walba ee USD la socoto waxay suuqa ka tahay major beeris waaye waxa kamid ah euro USD euro USD kamid ah waa lacagta euro USD waa hadhow qaabka suuqa ugu shaqeysan doonta waxay tahay lacagta euro USD isku bedelan doonta qiimo cayman markay joogto isla qiimahaasna hadhow iska sii gadi doonta qaabka u shaqeysan waa arki doonaa insha Allah mar dhaceeno GBP USD al jirto oo Great Britain lacagta Great Britain pound USD oo dollarka ah USD JPY lacagtii dollarka iyo lacagta Japanese-ka lacagtii dollarka iyo lacagta Faransiiska lacagtii dollarka iyo lacagta Canadian-ka Australian dollarka iyo lacagta dollarka isku bedelayo waa intaas sideedaas ay jirto waxaa loo yaqaanaa major currency pairs waa lacagaha ugu waaweyn dollar lacag walba dollar la socda major waa marka sidaas la soco lacagaha kale waa kana marka 28 ka lacagood isla wada socdo waa kana waa euro GBP euro AUD euro GBP oo dhul isku bedelan doono beer caadi aad tiraysanaysid oo analyze garaysanaysid sida ula soconaysid xaaladda la soconaysid kala arag waaye intaas oo lacagood jirto waa euro AUD waa lacagta euro iyo lacagta Australian dollar isku bedelay lacagta euro lacagta New Zealand lacagta euro lacagta dollarka lacagta euro lacagta Canada lacagta euro lacagta CHF waxa waaye Swiss franc lacagta Faransiiska leeyahay euro JPY waa Japanese yen lacagta Japan waaye GBP da hogaaminaya lacagta suuqa kale euro AUD lahaa euro AUD GBP NZD waa lacagtii Britain isku bedelay 28 kaas lacagood waa idin soo diri doonaa Zealand عنده ماشي كآخر سنة سنة خاطر إسقيان وحيابا كول فائدة سندون إن شاء الله. أوكي. إيه محنو في جماعة واحد يروح الله بيس إفوات واحد الله جست محل بيس إفوات وحواي لعقته
ugu horeysa ee lacagtaada beerka laba beers maxaa soo aragnay horta kor u laabano beer waxaa la lacagta ugu horeysa ee lacagtaada beer euro GBP oo kale piece part waxaa la jirto lacagta oo wax hogaaminayso iyo lacagta la hogaaminayo waa markaas labada lacagood qaabka u shaqeynaa marka lacag walba ee ku horeyso waxa waaye base loo yaqaanaa lacag walba ee ku dambeysna waa quad tusaale kale euro iyo USD waaye suuqan waxaa la rabaa in sell loo galo marka waxaa la sameynaa euro waa iska iibinaysaa adigoo euro iibinaya isla markaas waxaa iibsanaysaa dollar adigoo dollar iibsana euro iibsana isla markaas waxaa iska iibinaysaa marka labada lacagood saas ugu socoto tusaale kale euro iyo USD yaa rabtaa laba lacagood isugu kaa dhigan waayo oo beer ku ah oo ayada ku rabtaa inaad ku trade geliso suuqaasna waxaa rabtaa sell ahaan inaad u gasho mar allaala markaa sell u gasho waxaa iska iibinaysaa hadda meesha ma jeedaa inta waxaa noogu qoran sell intana waxaa noogu qoran buy euro iyo USD isla socdo waa euro iyo USD mar allaala markaa euro iyo USD saas kula socoto oo suuq aad sell ku gasho waxaa sii ogaataa in euro aad iska iibinayso oo aad soo iibsanayso lacagta dollar mar allaala markaa buy ku gashidne inaad waxa waaye lacagta euro iibsanayso aad iska iibinayso lacagta dollar waa isla haynaa umaleynaa intaas okay bixin marka waxaan rabnaa in course-keena soo socdo inaan isla wada socno hadhow marka waxaa dhici doonto in lisdhaho waxaan maxaa waaye ereygaan maxaa waaye magacaan maxaa waaye marka taas sees u dhicin waxyaabaha hordhaca ugu sii samaysana waxaa ka mid ah erebixinta suuqan erey walba oo caaw aragno waa erey aan la macaamili doono qof walba inuu nodgaraysto iyo taasii rajeyna insha allah erebixinta waxaa ka mid ah hadhow inaan dhaho trade line-ka trading view-geena geeya trading view-ga muxuu yahay trading view-ga waa website aan u isticmaalno inaan ku falanqeyno suuqa si aan lacag ugu sameyno suuqa marka qofka uu rabo badankeena waxaa jiro suuqa markay ku cusub yihiin qaladaad ay galaan waxaa ka mid ah qofka suuqiyuu soo galay MetaTrader 4 oo soo degsada application oo dhahaa jiro oo suuqa laga galo lacag real ugu jirto mobilkiisuu furaa MetaTrader 4 ka jartigiisuu fiirinaa lacag iska ordayso arkaa ama kor u socoto ama hoos u socoto iska soo raaca isla markii lacagta kala badinaad lacagoo suuqaas ku khasaara qabto waxaas maxaa u keenaa aqoon darimo la dhihi karo marka fudeedna way noqotaa kow qofka asoo suuqa yaqaan inuu soo sameeyo waa laga yaabaa taasoo kale waxaa la dhihi karaa qalad oo qofku aqoon dari u geysato ama qalad ugu talagala waayo laakiin qofka markii aqoon dari qalad u geysato waxaa ka mid ah suuqan asuuska cilmikeysan lacag real intuu mobil kusoo shubto MetaTrader 4kiisa furto ama 5kiisa oo fiiriyo jartigeeda lacag iska ordayso buy u socoto wuxuu ka faa'iideysa raac lad fiican u isaga galaa ee la degaysaa bari wuxuu ku leeyahay suuqan balaayo waa khasaaro waayo the same way wuxuu sameynaa ayadoo saas oo kale jirto qaabkaas marka trading view-ga waa waxa kaliya inta aan suuqan ku jirno aan la macaamili doono zaid oo ula shaqeysan doono asiga iyo qaabka u shaqeeya iyo maxaa la dhahaa asigana wuxuu leeyahay terminology qaar terminology-diisii asigana waa arki doonaa waa gaari doonaa insha allah habeen dambe waxa waa asaas soo galayna marka trading view maxaa la trading view waa website-ka aan u isticmaali doono inaan ku falanqeyno suuqa si aan lacago uga soo saarno suuqa waa isla hayna trading view erebixinteena ku mid insha allah erebixinta maxaa ka mid ah marka candlestick maxaa la lahaa qaabka u shaqeeyaa candlekan soo waxaasoo dhan waa arki doonaa laakiin hadda waxaa rabnaa faahintiisa inuu wuxuu yahay inaan fahno horta sawirka hoos ka muuqdo aa ujeediina waxaa loo yaqaanaa candlestick saa lahaa waa mid cagaarka iyo mid buluug midka cagaarka waa mar walba kan buy la dhaho dadka dhahaan buluugkana waa kan sellka la dhaho qaabkaas u samaysan yahay inta badan dadna waxay sameeyaan waa iska baran doontaanoo qof kalarkaa rabto adeen ka dhigan doontaa base laakiin waxaa u labadaas kalar marka trading view-gaaga marka ugu horeysa afuratid kalarskaasoo ku siin doonaa okay candlestick maxaa marka candlestick waa shaxan qiimeed oo loo adeegsado in lagu muujiyo qiimaha inuu yahay buy ama inuu qiimaha yahay sell muddo cayiman muddada cayiman waxaa waqti waxaa jiro waxa la time frame waa arki doonaa oo soo socdaa marka candlestick maxaa la candlestick waa shaxan loo adeegsado inaan ku muujino qiimaha inuu yahay buy ama inuu qiimaha yahay sell muddo cayiman ereygan la dhaho candlestick intuu ka yimaado ereygan candlestick wuxuu ka yimaado waxaa isticmaali jirtay ganacsatada dalka Japan ka shaqeysata bariiska ayagoo kula socon jireen sicirka suuqa ee maalinlaha 100 sano ka hor intuusan Mareykanka la helin ka hor ay isticmaali jireen candlestick waa erebixinteena ku mid yahay candlestick haddaa aragtid hadhow maxaa la dhahaa midii doontid waxaa filaynaa ina sawirkiisana waa kaas hoos idin soo dhigay candlesticks-ka qaabka u shaqeeyaan waa arki doonaa iyo candlestick-yada noocyadooda kala duwan iyo waa soo socota insha allah erebixinteena sidoo kale waxaa ka mid ah time frame maxaa la lahaa suuqan wuxuu leeyahay waqtiyo badan oo kala duwan marka waxaad rabtid inaad qiimeysatid ama falanqeysatid suuqa waqtiyada kala duwan ee qofka traderka uu isticmaalo inuu falanqeysto suuqa
uguna helo jihada saxda waxaa loo yaqaana time frame aa loo yaqaana waa waqtiyada kala duwan ee qofka traderka ah uu u isticmaalo inuu ku falanqeysto suuqa si uu u helo jihada saxda ee suuqa una raaco waxaa loo yaqaana time frame okay time frame-yada suuqa uu leeyahay way badan yihiin waxaa ka mid ah monthly time frame waxa la jirto waa hal bil time frame inaad suuqan hal bil inta saaray time frame-ka ay fiiriso jihada suuqa u socdo mar walba time frame-ka waxaa loo isticmaalaya waxaa waaye qofka inuu helo the exact right way u socdo suuqa inuu helo waayo monthly time frame-ka waa marka sidoo kale waxaa jirta weekly time frame inaad fiirsatid waxyaaba aniga aa isticmaalo user soo raaciyey weekly time frame oo kale isticmaala suuqa markaa rabo inaan falanqeeyo waxaa kasoo bilaabaa isbuuc waxaan dhahaa isbuuc lacagtan xaaladda kusoo sugnayd waa soo fiiriyaa isbuucaan inta ka rajeynayna inay aado waa soo ogaanaa markaa soo ogaado waa kasoo tagaa waxaa imaanaa waxaa loo yaqaana day time frame maalina imaanaa maalinkii ayadana waa waxyaabaha isticmaalay kamid tahay suuqa maalin intuu jihada ujeedaa 4 hour 1 hour time frame aa ladhaho jiro 30 minute aa jiro 15 minute aa jiro 1 minute aa jiro 1 second aa jiro xitaa waa fiirsan kartaa laakiin inta badan waxyaabaha aniga aan ku trade garay waxaa waa weekly time frame-ka markaa wax falanqeysanayo waxaa waaye weekly time frame daily time frame 4 hour-ka iyo 1 hour-ka inta badan isticmaalaa 15 minute-kan marmara waxa ka qaataa entry-ga qaataa qaabka looga qaatana waa arki doonaa entry maxaa loo arki doonaa iyadana maxaa noo xiga marka erbixinta waxaa kamid waxa loo yaqaana pips waxyaabaha daa idin sheega waxaa kamid ah pip suuqa marka spread uu kuu furo intaas pip hoos kuu dhigaa soo dhex pipka lagu sheega waxa waaye waa decimal number taasoo sheegayso heerka u dhexeeya laba lacagood markii la bedelanayo waxyaaba inta badan la xisaabiyo waxaa kamid pips tusaale kale pipka maxaa waaye dhaqaaqa oo suuqa sameeya waxaa loo yaqaanaa pip halkii dhaqaaq oo suuqa sameeyo kor ha u sameeyo ama hoos u sameeya waxaa loo yaqaanaa pip aa loo yaqaanaa okay airbibis waxa waaye waa decimal number kaasoo sheegaysa suuqa laba lacagood qiimaha u dhexeeya sidoo kalena waa halbeega lagu cabiro dhaqaaqa suuqa wax walba halbeega leey tusaale kale lambar 4 iyo zobo kale 1 kilomitir u dhexeysa dhaxna kilomitirkaasoo kale suuqa waxyaabaha halbeeg waxa u ah labadan lacagood lacagta inta ka soo kacday hadda intaan joogto intee biibe soo dhaqaaqay waxyaabaha inta badan haduu markaa suuqa gashid halbeeg ula macaamili doonto ka mid ah tusaale kale waxaa leedahay lacagtan inay ii dhaqaaqdaa rabaa intee in la eg irabtaa rabaa inay ii dhaqaaqdo marka intaas in la eg inta ku dhaqaaqday waa sii cabiranaysaa waxa lagu cabirtay leedahay isla markaas suuqa sidaas ugu faa'iideysanaysaa okay lot size waxa la yiraahdo lot size maxaa marka waa lacagta aad rabto inaad suuqa la gasho labada dhinac midkood buy suuqa u gali rabtid ama sell suuqa u gali rabtid lacagta ayman suuqa u galaan leed marka ugu horeysa aad galayso tusaale kale haddii aad rabtid inaad kan wax ka iibsato kale alaab qofkan oo rabo inuu oo si iibiyo wuxuu sameynaa lacag oo ayman u sameysana adiga marka suuqa lacagta ayman suuqa la gali lahayd waxaa loo yaqaanaa lot size aa lahaa hadhow lacagta ayman ma dhihi doono erayga waxaa isticmaali doona loo yaqaana lot size bibis waxaa la dhaqaaqa suuqa u sameeyo hadhow ma dhihi doono dhaqaaqa suuqa u sameeyo waxaa isticmaali doona eraygan loo yaqaana bib erbixinta insha allah saasay muhiim u tahay okay bibs iyo lot size kan ayaga isla shaqeynayna waa noo soo socotaa okay waa kan waxyaabaha inta badan dadka muhiim ee tahay inaad fahantid suuqa si aad ugu khasaarin inaad ogaatid tusaale kale waxaa xisaabeynaa lot size-yada lot size waxa waa lacagta aad suuqa inaad ku gasho tusaale kale 0.01 waa lacagta ugu yar ee suuqa qofka inuu ku galo ee tahay 0.01 waa iyo halkii barbiib meeshaas waa ujeedaan u maleynaa lot size-ka iyo barbiib ah ku qoran tusaale kale halkii lot size oo 0.01 waxay halkeeda waxay u dhigmataa inay tahay 10 cent tusaale kale 10 cent ma taha okay waxa suuqa ii dhaqaaqa 20 bib muuskeyga ma la socotaan idin koraale أكيد والله ما شاء الله والله tusaale kale suuqa 20 bib marka uu suuqa dhaqaaqo oo adiga aan lacag ahaan ku gasho 0.01 walaalow lacagta aad rabtid inaad heshid waxa waa $2 20 bib suuqa marka ku dhaqaaqo 20 bib suuqa marka ku dhaqaaqo lacagta aad heli doontid oo 0.01 ku gasho waxa waaye $2 haye waxa ku gashay 0.01 suuqiina wuxuu dhaqaaqay waxa loo yaqaan 40 bib 40 bib suuqa soo dhaqaaqo 0.01 ku gashid waxa waaye waa $4 adiga waxa isku dhufsan doontaa 20 kan bib iyo 10 kan cent isku dhufso 20 10 ku dhufo waa in $2 nadiif ku noqoto 0.10 waxa ku dhufan doontaa $2 $2 suuq kaysata
0.10 waxaa ku dhufan doontaa 40 cent $4 0.10 waxaa ku dhufan doontaa 60 bib suuqa 60 bib markuu dhaqaaqo $6 ka helay okay 0. waa lotsaasiyada waxaa loo yaqaanaa micro waa lotsaasiyada ugu yar ee suuqa loo isticmaalo 0.2 oo kale waxay u dhigmataa 20 cent 20 bib suuqa markuu ku dhaqaaqo $4 ka helaysaa haddii 40 bib oo ku dhaqaaqo $8 ka helaysaa adiga waxaa sii go'aamsanaysaa tusaale kale suuq waa trade garaysatay waa analyze garaysatay waxaa heshay 20 bib oo nadiif ah heshay 20 bib waxaa sii ogaan doontaa halaha faa'iido doonta iyo halaha khasaari doonta tusaale kale stop loss-kaaga waxaa ka dhigata 10 bib oo 0.1 ah ku gasho meeqa waay inta fiiriya meeqa ku noqon $1 khasaare hadda maadaama 20 bib uu inta yahay 10 bib waxaa ku dhufsanaysaa 10 cent meeqa ku noqonaysaa $1 suuqa khasaare haddii 10kaas bib dhanka qaldan oo kula aado dhanka suuqa khasaarada kula aado hadduu dhanka faa'iido kula 20 bib waxaa ka dhigata faa'iidada take profit la arki doonaa take profit ka hadda 10 ka dhigatidna 0.1 suuqa ku gashay $2 faa'iido $1 ayadana faa'iido doonta $1 khasaari doonta $1 faa'iido doonta lotsaasiyada iyo qaabkii la isugu dhufsanayna waa kaasaa marka la ku celiyo 0.05 haddaa suuqa ku gasho waxay u dhigmataa 50 cent adoo suuqa la galay 50 cent 20 bib markaa ku dhufatayna $10 ka haysataa haddii 0.05 adoo ku gasho 60 bib ah heshina meeqaa ka haysataa $30 60 walaalow ku dhufo 50 cent waa 30 bib $30 ka haysataa okay 0.09 ku gasho waxay u dhigmataa 90 cent 90 cent haddii 20 bib lagu dhufto waa imis waa $18 haddii 60 bib lagu dhuftana waa $54 bibka iyo lot size qaabka isku shaqeeyaan muhiimadda ogaaw lot size-yada waa kuwana micro hadda isticmaalaysid lot size waxa ogaataa haddii 0.09 suuq ah ku gasho oo 60 bib oo faa'iido ay rajaynayso lacagtaada faa'iido saxda ku soo laaban doonto waxay noqon doontaa $54 okay waxaa jirta mini lot size la dhaho waa lot size-yada oo miniga ah maadaama laakiin hal mid ogaayo suuqa inta alaab inta ku cusub tahay waxaa idinku recommend gareynaa inta lot size-yadan ay ka badan maadaama suuqa mar walba waa ku cusub tahay qaabka saxda oo suuqa oo anigana dhamaan walaal codka anigana miya qadka wuxuu ka go'aamisaa adiga xataa wuxuu ka go'aya adiga le waa walaal adiga le waa dadka waa nadiifa iyo maqlaan بس اوكي يعني قال اوكي inshallah marka qofka inta suuq ku cusub yahay waxa ku recommend lot size-kaas inuu isku weynaanin inshallah waliba 0.01 mid kale waxa jirto qofka lacag qof walba lacag ugu jirto iyo lot size ku haboon inshallah ana la kuma maqalno dadka kale codkooda mood ka saaran ما إن شاء الله مود نقل ولا لا غير لا نسيه مرة قفل بنعرف عليك خوف كاين حسب في عنه عن دوبين وقفل بتوجه سيجي بدي مرة يعني أسفكم من الجيران إن شاء الله أوكي لو تصير ميجرا واكن ميني واكن صار كل 0.10 هذا سوق وقش وحق وقتها سوق إنه $1 أكل جر 0.10 كده طلع غير أملاين 0.10 $1 هذا سوق كل جر وصار كل سوق هذا لحدن بيفوت أخذ لحدن $1 هذا هذا $40 بيفوت أخذ $40 هذا 20 بيبقى دي سوق هكذا دور 0.10 كل بيحكوا متى $20 oo ka helay 0.20 $2 dhigtaa 0.30 $3 dhigtaa 0.40 $4 dhigtaa 0.50 hadii hore maxay 0.05 tan laakiin waa 0.50 $5 dhigtaa $5 hadii 60 bib suuq ku dhaqaaqo meeqa ka haysataa $300 nadiif ah haysataa 60 bib analyze garaysatay suuq 60 bib ku dhaqaaqay 0.50 ku gashay $5 waa $5 60 ku dhashan 6 ku dhuf waa 30 euro ku dhaf $300 suuq ku haysataa okay 0.9 ku gashay suuq $9 ula jirtaa 0.9 ka ku gashay ama 0.9 ula jirtaa $9 $9 hadii 60 bib lagu dhufto waa imis waa $540 suuqaas ka haysataa lacag fiican ku dhashay okay loo sida standardka la hawada inta badan qofka suuqa ku cusub almost waxa ka recommend garaan in loo sida isticmaalo haddii aad suuq meel fiican ka joogtid oo educated ku tahay weligaa xataa riskiga horta qaadan adi mar walba waxa ogaataa akoonkaaga lacagta ku jirto ogolaa boqolkiiba hal inaad qasaarto tusaale kale $1,000 haddii ku jirto boqolkiiba hal waa ogtahay waxay kaan ku noqonayso $500 markay tahay lacagta boqolkiiba hal waxay ka noqonayso marka mar walba waxa ogolaataa in suuqa boqolkiiba hal aad qasaarayso akoonkaaga in alaalinta suuqaas laakiin ha u ogolaan suuqa waxa la dhaho lacag badan inuu kaa lumin
mar walba suuq lacag ku limid waa mar walba suuqa disappointed ka noqonaysa mar walba suuqa disappointed ka noqotay waa mar walba suuqan sii nacis mar walba suuqa sii nacdana waa mar walba qof walba aad suuqan u soo socda ka celin doonta marka waxa soo caqabad iskugu dhicin waxa ka taxadirtaa in aaday lodkaaga iska saareen suuqa marka ordaayo weligiis wuu jiri doona inta lacag jirto suuqan wuu jiri doona haddii aslada suuqan 10 kobri 20 kobri laga shaqaysan doona filinkiisu soo gabagaboobi doona ma jirto oo fikirkaas ka saar suuqan inta lacag adduunka laga isticmaala suuqan wuu jiri doona wal si asbiyan doona maybe laakiin wuu jiri doona laakiin suuqan wax ka dhamaanay ma 5 maalin ku shaqeeya 24 saac ku shaqeeya riska qaadan mar walba ku dadaal waxa ugu possible mid kale waxa jiro waxa loo greedy waxa waa hamweyni qofka inuu oo dhaho maanta kaliya suuqa ka qabsa ka taajir mar alaal markii fikirka kugu soo dhacdana mar alaal markaa rabtid inaad suuqaas aanacid mar alaal markaa suuqa nacis waa mar lacagta guuys macna okay London standard ka kan hal dollar markaa suuq ku gasho waxay la mid tahay adoo 10 dollar suuq kula jiro halkaaga dollar wuxuu dhigmaa 10 dollar halkaaga dollar wuxuu dhigmaa 10 dollar 10 dollar 20 biim ka ku dhufto waa imis 200 dollar haysta 10 dollar marka 60 biim ku dhufatin 600 dollar haysta lot saas u shaqeeyaa tusaale kale bid marka aku soo gasho lot 8 alla lot 8 wuxuu dhigmaa 80 dollar suuq kula jiro halkii mar suuqa dhaqaaqa 80 dollar khasaare am 80 dollar faa'iido taas asla fahad بيب كواسة إن كوسو شيء واحد دقائق هل دور سوق مكالي سوقش هل كمرة سوق دقائق جهاد وربع هو دقائق هذا بايع وقش سوق دوسل لينكي سكولة دقائق وهل بيب هو حتى بيب هذول دقائق ما خسارة كم دورة خسارة هذه سوق ولا بعتم بيب لنا عوقش ما يدين عد كل ما خسارة لا بقول دورة خسارة هذه لينك سوق عوقش شيء ما يدين كل لحنا بيب دقائق ما خسارة لحد بقول دورة هذه لينك سوق عوقش شيء وكل وسيال دورة عوقش شيء سهاشن دورة بمثال كم شو كون أفر بقول دورة هم مركوب السنة لحن تيم كوكودا قاعد أوكي صوت الجبينة ربحين تحكمي هذا كل واحد له بروفيت محلها فإذا اسكو بدل كلا بلعبه لا بدل لعبات فإذا أكاش وحقولنا قانا بروفيت نو ريكومند قفل بنيقانو لص نو أنا قانا ولعبت أتخساري صرف كلا بلعبات أنت اسكو صرفته سوق دنك أوجش ما دنك تكلم كل هذا لعبت خسارتي حلو أنا لصا إيدونا إنتري بوينت محلها إنتري بوينت وحيابها وهم يمسك قفل بقى سوقا كجرو سلكتيس إنه حلوة وصارت السوق بدنا ما أنتي قناة أو بدن وواحد بدن كتانسة لكن واحد كلي ويرنا وحتى سوقا جهة السحب ما شيء واحد بونا سوقا أنا كجالي كرا أنا لعب وسوقين كرا سلكت السوق وواحد اللي يقان إنتري بوينت وحيابها أنت بدن أود صار دونا أصفي عن وهل دونا أصلا فلان قيم دونا إن شاء الله في الولايات ما دي أكسي من نقطة دول كنصيب في نقاطها سيدة ميستان أوكي إنتري بوينت وحلها وماشى وهبون قادن لتريد سأد بروفيت ويش إنتري بوينت يالها إنتري بوينت ومال والبسوق كجلس وحلو خان إنتري بوينت أوكي أريد السوق كم إذا حكم إذا سل سوقا سل جوجل أمقل سل محلها أركلو ده حدا أروى اسكم معنا سل إن سوق الشرط ده إن بيرش ده ده حدا أروى اسكم معنا وحلو لي جدا ومركز السوق أوسعده dhanka hoose ama suuqa la iska iibinayo selka lagu sheegayo ama beerish ama maqli doonta ama sharta dama qashi waxa loo yaqaan suuqa marka u socdo dhanka hoose marka u socdo waa dhanka marka daay kan dalastiga arkana guduud waa arki doona dhanka hoose u socda waxa loo yaqaan sel ama short ama beerish waa suuqa marka u socdo dhanka hoose ama la iska iibinayo okay arbixintu waxa kale kamid ah erey loo yaqaan buy long iyo bearish bullish muxuu yahay long muxuu yahay waa tii cagsigeeda oo ah suuq mar alaal markuu suuq kor u socdo laba sabir ay soo dhigay waa kana sabirkan wuxuu suuq inta u socdaa kor u socdaa waxa loo yaqaan buy ama long ama bullish cagaarkaas u jeedin waxa loo yaqaan suuq marka kor u socdo cagaarkaas u jeedin oo kor u socdo waxa loo yaqaan long bullish ama buy okay cagsigiisana waa kana oo hadii had soo arkeen waxa la ahaasina selka waxa waa xuduudkaas oo u socdo suuq dhankaas kan inta u socdaa kor u aaday kan hoos soo aaday marka entry point lagu sheego waxa waa labadan suuq qof inuu suuq inta ka galo oo suuqan dalkan saas ay soo suuq inta galo oo halkaas inta maraxda halka la soo aado waxyaaba dadka qasaariyo kamid marka meesha ugu haboon ugu saxan entry point gana waa arki doonaa qaabka loo qaado okay buy iyo long iyo bullish waa marka uu suuqa u socdo dhanka kore ama la iibsanayo waa kan suuqa buy ku gal marka lagu dhaw suuqa marka iibsanaysa lacag soo iibsanaysa mar alaal marka suuqa iska iibinaysa lacag iska iibinaysa ku gashin lacagtaas iska iibinaysa lacag kale soo gadanaysa arbixinta nooga okay faa'iidada uu leeyahay suuqa forex marka
suuqa forex waa suuq aad ka shaqaysan karto 24 saac 5 maalmood adigoo ka samayn karo lacag ala lacag taariikh alaab inta adiga rabtid aad samayn kartaa according to your education according to your strategy iyo nasiibkaaga laakiin ogaaw suuqan wax nasiib la dhahan ka shaqeeya inta badan suuqan waxaa ka shaqeeya wax cilmi suuqan cilmi mu leedahaa boqolkiiba hal uu ka yahay nasiibka lagu sheegaa suuqan dad waxaa maqlaysa waa iska nasiibsanaa waa raaca waa ogaaw mid hal maalin haddii ilaahay kugu toosiyo waxaa waaye hal mid kugu toosaysa almas way ku khasaaraysaa suuqan waxaa keliya ee priority ka leh waxaa waaye laga yaqaan in suuqan cilmigiisa aad leedahay waa si fiican u taqaan marka suuqan faa'iidadu leeyahay waxaa waaye waa suuq aad ka shaqaysan karto xor war habeenkii 5 saacadood suuqa waxaa helaysaa meel lacag ka shaqaysatid 7 saacadood suuqa saas oo kale salaad subaxda suuqa oo kale suuq waa ka shaqaysan kartaa 24kaas 24kaas saacadood iyo 5taas maalin hore intuu soo waxaa kamid ah waa isniin oo habeenkii 6 saac iyo 40 furmaayo ilaa habeenkii jimcaha sabti soo galaayo 5taas maalin suuqa shaqeeya 24 saac suuqa uu shaqeeya suuqa xilidiisa iyo qaabka uu shaqeeyo waa arki doonaa okay suuqa forex waxa uu kaliya uu ku ogolaanayo inaad noqoto waxa la yaqaan financial freedom waa waxa kaliya ku ogolaanayo suuqa inaad noqoto financial freedom adigu ku shaqeyn hada suuqa inta lacag aad ku soo wajid qof ma u shaqeysa waa ma adaa shaqeysano iska u shaqeysan qof oo ku qasbaa suuqa inaad soo kacdo oo suuqa aad gashid malaha bas ka jiifta suuqa lacageed shalo kala da lacag fiican suuqa ka qabtay shalo kala suuqa lagu qanaad ka heshay ma tagana tusaale kala suuq waxa loo inuu xal loo xajir target maalin la suuq waxa maalinkii intee raw suuqa inaad ka helo maalinkii kala $50 waa inaad suuq ka helo $50 suuq maalinkii inaad ka hesho inaad ka baxdaa okay suuqa forex waa suuq kaliya ku ogolaanaya inaad noqoto financial freedom oo micnaheedu yahay inaad shaqaysato adigoon cidna kale aad u shaqeynay oo aad lahayn maamul ka saray ama qof ku amraa inaad samaysid ama qof ku dawo joog dhahay waxaan ma computer marka financial freedom rabtid waxyaabo kaliya inta badan maanta suuqan forex waa okay suuqan ma aha suuqan waxyaabo uu soo ahayn dadka badan ay u maleeyaan ay jiro suuqa forex ma ahan haddii aad ku fikirayso inaad hal habeen $1 milyan aad ku samaysatid walaalo waa ku qaldan tahay suuqan wuxuu la mid yahay sida ganacsiyada kale ee qof walba oo maanta uu ka shaqeeyo oo shaqaale ah ka tahay ama walaalka leeyahay ama aabaha leeyahay ama adeer leedahay laakiin suuqan wuxuu la mid yahay ganacsiyadaas oo kale wuxuu rabaa step wax walba tartiib inuu gaaro Warren Buffett ka in sheegay oo billions suuqaas ka sameeyay hal habeen lacag ku sameeyay waqti badan ku soo qaadatay dulqaad badan oo muujiyay muddo dheer kadib wuxuu ilaahay u soo geliyay inuu maanta ninkaas uu yahay oo noqdo lacag inta la eegno maanta uu haysto waxa uu ku noqdo waxa loo yaqaan dulqaad iyo wadadii process inuu ogolaado waxyaabaha arka suuqa oo cilmi u leeyahay kaalo argo inuu ku support gareeyay waxa la rabaa in patient muujiso mid ogaaw wax walba aad bilaawaysid haddii aad u bilaawdid wax walba bilaawaysid waxa la rabaa dhamaadkeeda inaad ogaan karto taalo kale suuqa maanta ninkaas oo bilaawaysid inaad u bilaabin labadoo bari uu jiro ka shaqeyso labadii bari aad ka fikiraysid ku support gareeyay suuqa kan jabeysa waa isaga tagaysaa waa ka tagaysaa laakiin haddii suuqa oo ka jirto oo meel ku xariiqanta u dhahay suuqaas ilaahay meesha ii gaarsiiyo qof noocaas inaan ka noqdaa rabaa mar walba waxa suuqa asaas wax walba habeen computerka 24 saac u fadhinaysaa 17 hour waxa laga yaabaa kursiga hadda ku fadhiyo wax in kugu sharxo inaa fadhiyo anoo suuqaas ku jiro oo maalinkaas lacag inaan ka sameeyay waa indhaha lacag leh ku haayo lacag leh ka suganaa meel ka galabis 17 hour oo related oo aan miiskas u kicin inaan salaad kana inaan wax cunaayay marka waxa rabaa waxa soo dhan wax inaan u soo gudbid waxa la dhaho long term vision business meel jadwal ina meel xariiqad meeshaas ilaa ka gaaraysan wax walba dulqaadkeeda inaad samaysid suuqan forex ma aha meel qof walba uu lacag ugu lunto kaliya waxa waaye qof walba aan aqoon u lahayn ay suuqan lacag ugu luntaa suuqa forex ma ahan adigoon aqoon u lahayn suuqa lacag badan aad ka samayn kartid okay qodobka 99 la jiro 2 minutes aan uga soo haray zoomkeena waa ku soo laaban doonaa su'aalaha ka dhigan doonaa laakiin labadan daqiiqo waxa ku soo gudbiyeenaa stage ku noo dhamaaday qodob 99 la jiro qodobkan qodob ugu muhiimsan arab in waqti badan siiyo laakiin waa sameynaa qodobkan qormo waxaa jirto loo dhahayo suuqan boqolkiiba 90 ganacsatada suuqa ku cusub waxa ay lumiyaan boqolkiiba 90 lacagtooda 90 ka maalmood ugu horeysa maxaa lagala jeedaa tusaale kale adigoo faarax iyo ayadoo xaabe ah suuqa maanta soo galaysa lacag suuqa cilmi fiican u lahan trade walba sida daa'iin sheegay lacag dhinacaas u socoto iska arkaysa waa sii raacaysa lacag hoos u soo socotay arkaysa waa sii raacaysa lacagtooda luminaa suuqan waxaa jirta qormo ku dhahaysa 90 boqolkiiba 90 suuqan sharciga qof walba oo suuqan ku soo cusbay weydii su'aashaas lacagtaada intee mar akoonkaaga gubtay wuuna ogaana qofka marka hadii uu rabo qaladkiis inuu saxo waxa la sameeyaa marka maanta qalad gashid almost qaladkaaga not great bir inaad sameeynin
sababtii lacagtaada kaaga goobtiin awal meeqa akoon la soo gubaa aniga intee jeer akoon iga soo gubatay marka waxaa la rabaa inaad ogaan kartid marka waxaa lagu dhahay 90 waa qodob muhiim boqolkiiba 90 ganacsatada suuqa ku cusub waxa ay lumiyaan boqolkiiba 90 lacagtooda ugu horeysa 90 ka maalmood 90 ka maalmood waa 3 bilood oo iska dheh 3 bilood micnaheedu maaha in ilaa intaas laakiin waa cadad ugu dheer qof walba celin karo in lacagtiisa halas ku lumiyo laakiin qof walba bilo ka hor isbuuciyo ku lumiyaan dadka lacagtooda banaanka ka noqdaan okay waxyaabaha sabab maxaa ka mid ah boqolkiiba dadka in lacagtooda saas u lumiyaan waxaa ka mid ah kow lacagtooda aan xadidnayn ay ku trade gareynayaan ayagoona samaysanin waxa loo yaqaan stop loss tusaale kale suuqu iska soo galaa uu iska furaa trade kan dhinaceeda aad u lacag sidii ku lumina lot fiican uu ku soo galaa lacag fiican uu galaa taasoo kale waxaa laga yaabaa lot inuu ku galo 9 lot 9 oo $90 u dhigmo $2,000 ugu jiro suuqa haddii 10 mar dhinacaas kale uu dhaqaaqo lacag ku luus gareey sababta 10 bib marka lot 9 ku dhufto $90 waa $900 lacagtaada maxaa kaaga haray marka waa sidii ku dhamaatay okay qof aan suuq aqoon u lahayn oo ku fikiraya inuu ciyaarta hajir noqdo waxyaabaha oo suuqa dadka lacagtooda kala mid ka mid tahay okay kow sidoo kale waxaa ka mid ah qofka oo jadwal aan lahayn tusaale kale maanta suuq $100 ka helo oo lacag kale ka sii raadiyo mar alaal markaa suuqa isaga sii jirtidna waa mar alaal markaa suuqa lacagtaada sii luminaysa waxaa idin karaa gelinaa zoomka inay less than 1 minute ka dhiman tahay oo kusoo laaban doonaa insha Allah hadduu oo inuu linkigaas kusoo laaban doono in kale aan ogeyn laakiin link kale soo dira haddii oo waa kusoo laaban waysa linkiga kale kusoo gala insha Allah okay ugu dambeyn ogaaw in ujeedka ugu weyn ee suuqa sarifka ee forex uusan ahayn in aad hal habeen $1 milyan ku samaysid ugu dambeyn si aad dhaqaale abuur u noqotid oo lacag fiican suuqan ugu samaysid waxaad u baahan tahay inaad baratid suuqa qaabka u shaqeeyo inaad fahantid waxyaabaha suuqa saameynta ku leh inaad sidoo kale qaab farsamo ka dhigayso suuq qof sidoo kale inaad noqotid qof farsamo u leh oo xirfadda suuqa yaqaano si aad u heshid waxa loo yaqaan